qof kasta oo sirdoon iyo siyaasadda qarsoon wax ka barta wuxuu ogyahay in dunida mararka qaar ay noqoto masraxa sheekooyinka aan caadiga ahayn, sheekooyin ay ku loolamayaan qarsoodi, khiyaano iyo qorshayaal si xirfad leh loo dejiyay. mid ka mid ah sheekooyinkaasi waa tii Maxamuud Al-Mabxuux, nin ka soo baxay wadooyinka Gaza kuna dhashay dawi dagaal iyo dulmi, balse noqday mid ka mid ah maskaxdii iyo gacantii xoogga Xamaas ay ku tiirsanayd. nolol sir iyo halgan isku dhafan ayuuna lahaa, ilaa ugu dambeyntii magaciisa uu noqday ciwaan caalami ah kadib qaabka uu dilkiisa u dhacay. dilkiisa laguma fulin xabado iyo qarax, balse waxaa loo adeegsaday xeelad, qorshe qarsoodi ah iyo farsamooyin casri ah oo sirdoon. haddaba aan ka hadalno sheekada ninkan laga soo bilaabo noloshiisa carruurnimada ilaa howlgalladii uu fuliyay iyo ugu dambeyn dilkii qarsoodiga ahaa ee dunida gelgelay. waa idin salaam saaxiibayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. intaan gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo channelka laagtanaad ii saarto. channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka. inoo bilaabo markaan warbixinteena. Maxamuud Al-Mabxuux wuxuu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan ururka Xamaas. nolol, dagaal iyo geeri qarsoodi ah ayaa ka dhigtay magacaan wali lagu hilmaamin dunida carabta iyo sirdoonka caalamka. Maxamuud wuxuu ku dhashay magaalada Gaza sanadkii 1960 xilli dhulka Falastiiniyiinta ay ku jireen xaalad dagaal, qaxootinimo iyo cadaadis joogto ah ku imaanayay Israa'iil. Gaza waqtigaas waxay ahayd meel ay ka muuqdaan saboolnimo, cabsi iyo rajooyin isburburinaya. carruurnimadiisii hore ma ahayn mid caadi ah sida carruurta kale ee caalamka, halkii uu ku ciyaari lahaa wadooyinka ama uu nolol degan ku kori lahaa. wuxuu la kulmay muuqaalada ciidamo hubeysan, barakacayaal iyo dagaalo joogto ah oo hareereeyay nolosha dadka deegaanka. waxa uu ku koray qoys danyar laakiin leh qadarin xoogan oo ku aadan diinta iyo difaaca dhulka Falastiiniyiinta. qoyska Maxamuud wuxuu carruurta ay bareen in ay ka go'an tahay in dhulkooda ay difaacdaan, waana halka uu ka dhaxlay dareenka xoogan ee halganka iyo iska caabinta. yaraantiisii wuxuu ahaa wiil firfircoon oo geesi ah, markasta wuxuu xiiseyn jiray sheekooyinka halganka iyo dadka difaacay dhulkooda. saaxiibadiis iyo qaraabadiisa waxay xasuustaan inuu mar walba ku celcelin jiray halku-dhigyo ku saabsan xurriyadda iyo sharafka dadka Falastiiniyiinta ah. dhibaatooyinka iyo cadaadiska uu arkay carruurnimadiisa ayaana ka dhigtay qof adag oo aan ka cabsan duruufta adag. isagoona weli dhalinyaro ah ayuuna go'aansaday in noloshiisa ku hibeeyo halganka, isagoona u arka in xurriyadda dadka Falastiiniyiinta aysan imaan doonin haddii aan dhiig iyo naf loo hurin. dabayaaqadii 1980yadii xilli Falastiiniyiinta ay ku jirtay marxalad kacsan iyo iska caabin hubeysan, wuxuu ka mid noqday dhalinyaradii si firfircoon uga qayb gashay aasaaska ururka Xamaas. ururkan cusub wuxuu ka dhashay baahida loo qabo in la yeesho xoog hubeysan oo ka hortaga Israa'iil, taasoo markaasi gacanta ku haysay dhul ballaaran oo Falastiiniyiinta xaq u lahaayeen. ma uusan noqon kaliya taageere, wuxuu si toos ah uga mid noqday aasaasiyaasha waaxda militariga ee Xamaas. waaxdan ayaana ahayd halka ugu weyn ee qorshaha sirdoonka iyo howlgallada militari iyo hub aruuriska lagu maamuli jiray. door weyn ayuuna ku lahaa isku xirka Xamaas iyo dalalka taageera, gaar ahaan Iiraan oo hub iyo dagaalba siisa dhaqdhaqaaqyada Falastiiniyiinta. wuxuuna ahaa nin loo igmaday inuu hubka ka soo iibsado suuqyo caalami ah kadibna si qarsoodi ah ugu gudbiyo gudaha Gaza. magaciisu wuxuu caan ku noqday howlgallo halis badan oo hagayay. waxaa lagu xasuustaa inuu ka dambeeyay afduubkii iyo dilkii askari Israa'iili ah sanadkii 1989. dhacdo keentay in dowladda Israa'iil ku dhawaaqdo inuu yahay bartilmaameed la tirtiro. tani waxay ka dhigtay in si weyn loo baadigoobo, balse isla markaana sumcadiisa ay ku dhex kordhiso taageerayaasha Falastiiniyiinta. halgankiisa ma uusan ku koobnayn hubka iyo howlgallada oo kaliya, balse sidoo kale wuxuu lahaa maskax siyaasadeed oo ku xeel dheer isku xirka ururada kale ee carabta iyo islaamka, isagoona kasbaday magac iyo maamuus ka baxsan Falastiiniyiinta. markii uu si dhammaystiran u galay hoggaanka Xamaas, wuxuu noqday astaan dagaal iyo halgan u taagan in ay Israa'iil tilmaamto argagixisyo khatar ah, balse uu shacabka Falastiiniyiinta u yahay geesi difaaca dhulkooda. markii uu ku biiray waaxda militariga ee Xamaas, si degdeg ah ayuu ugu dhex muuqday hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa, wuxuuna ahaa nin leh qorshe, adeeg iyo xirfad sirdoon oo ka dhigtay in lagu aamini karo howlgallada khatarta ah.
doorkiisa ugu weyn wuxuu ahaa helitaanka hub culus iyo qalabka military oo la soo geliyay Gaza, taasoo ahayd howl aad u adag xilligaasi. Mararka qaar wuxuu si qarsoodi ah ugu soo iibsan jiray hubka dalalka Yurub iyo Aasiya, isagoona adeegsanaya magacyo iyo dukumiintiyo been abuur ah. Hubkaasi wuxuuna si qarsoodi ah ugu soo gudbin jiray marino ay adag tahay in la ogaado, isagoona kaashanaya shabakado ganacsi iyo xiriiro sir ah. wuxuu kale oo door muhiim ah ku lahaa diyaarinta tababaro military. Xamaas waxay u baahneyd ciidan si fiican loo abaabulay, waxaana Maxamuud loo arkay nin dejin kara nidaam ciidan oo casri ah. wuxuuna tababaro u sameeyay dagaalyahano dhalinyaro ah, isagoona baray xeelado dagaal, adeegsiga hubka culus iyo sirdoon qarsoon. dhacdadii ugu weyneyd ee sumcadiisa caalamiga ah bedeshay waxay ahayd dhacdadii afduubkii iyo dilkii askari Israa'iili ah sanadkii 1989. Israa'iil waxay dhacdadan ku tilmaamtay falkii ugu argagixisanaa ee waqtigaasi dhacay, halka taageerayaasha Falastiiniyiintana u arkeen inay ahayd guul muujisay awoodda Xamaas. dilkan kadib, Maxamuud wuxuu noqday bartilmaameed weyn oo Israa'iil doonaysay in la tirtiro. wuxuu galay liiska madow ee sirdoonka Israa'iil, waxaana laga baadigoobay gudaha iyo dibadda Falastiin, taasoo beddelkeeda sumcadiisa gudaha Xamaas iyo guud ahaan dunida Carabta ayaa cirka isku shareysay, asagoo uuna noqday astaanta muujinaysa halganka Falastiiniyiinta. markii uu sumcad weyn ku yeeshay gudaha Xamaas iyo guud ahaan Falastiiniyiinta, wuxuu noqday nin si joogto ah loo raadinayo. sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaana ku dartay liiska ugu weyn ee dadka bartilmaameedka, taasoo ka dhigtay in nolol maalmeedkiisu noqdo mid ku dhisan cabsi, feejignaan iyo isbeddel joogto ah. wuxuu ka guuray Gaza dabayaaqadii 1980-yadii, isagoona markaasi ku laabtay Suuriya, halkaas uu ka helay taageero siyaasadeed iyo mid military. Dimashq waxay u noqotay xarun uu ka abaabulo howlgalladiisa, hub iibsiga iyo xiriirada caalamiga. si kastaba, nolol degan ma helin, wuxuuna had iyo jeer u dhaqmayay sidii nin socdaal joogto ah ku jira, isagoona mar walba beddelaa hoygiisa, gaadiidkiisa iyo xitaa muuqaalka uu bulshada kaga soo muuqdo. markii dambe wuxuu xiriir la sameeyay Iiraan, taasoo ahayd il weyn oo hubka ka heli jiray. safaradiisa badan ayaana ku tusaysa dalalka kala duwan ee ku yaala Bariga Dhexe iyo Aasiya u socdaale, isagoona had iyo jeer adeegsanaya magacyo iyo baasabooro been abuur ah si uu uga fogaado dabagalka. mid ka mid ah meelihii ugu badan ee uu ku noolaan jiray waa Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai, halkaas uu u tagi jiray safaro ganacsi iyo kulamo qarsoodi ah, isagoona isku dayaya inuu u muuqdo sidii nin caadi oo socdaal ku jira. noloshiisa dibadda waxay astaan u ahayd cabsi joogto ah, ma jirin habeen oo si degan u seexday, wuxuuna had iyo jeer ka baqaya in Mossad ama koox kale oo cadow ah ay dabagalaan. ilaalo adag, mararka qaar wuxuu la socon jiray ilaaladiisa khaaska ah, inkastoo badanaa uu jeclaa inuu si qarsoodi ah u safro si aan loo dareemin. xiriir qarsoodi ah wuxuu ahaa ninka isku xira Xamaas iyo dalalka taageerada siin jiray sida Iiraan, taasoo ka dhigaysay qayb muhiim ah oo aan laga maarmin. Maxamuud mar walba qalbigiisu waxaa ku xirnaa Gaza iyo halganka dadka Falastiiniyiinta. nolol kasta uu meel kale ku yeesho, wuxuu dareemayay inuu yahay nin socdaal ku jira, bartilmaameed nololeed oo sugaya waqtigiisa ugu dambeeya. 19 Janaayo 2010, magaalada Dubai waxaa ka dhacday dhacdo dunida oo dhan ka yaabisay. Maxamuud oo ahaa ninkii sirdoonka Israa'iil muddo dheer daba socdeen, ayaa soo degay mid ka mid ah hoteelada ku yaala Dubai, isagoona u muuqda safar caadi ah oo ganacsi. waxa uusan ogeyn ayaa ahayd in socdaalkiisa uu si dhow ula socday sirdoonka Israa'iil, gaar ahaan Mossad. muddo bilooyin ah ay qorsheynaysay dilkiisa, isagoona diyaarinayay howlgallo si heer sare loo farsameeyay. koox dilaa oo ka koobneyd ku dhawaad 27 xubnood ayaana loo diray Dubai, mid walba wuxuu watay baasabooro been abuur ah oo dalal kala duwan laga sameeyay, taasoo ka dhigtay inay u muuqdaan dalxiisayaal iyo ganacsato caadi ah. markii Maxamuud galay hoteelka, kooxdii Mossad waxay hore ugu sii diyaarsadeen. qaar waxa ay ku sugnaayeen gudaha hoteelka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa, qaar kale waxay isku ekaysiiyeen shaqaalaha hoteelka ayagoo xiran dhar adeegayaal ah. koox sirdoon kale ayaana si joogto ah ula socday kaamirooyinka amniga, ayagoona si farsameysan u tirtiraya raadadkooda. habeenkii Maxamuud wuxuu ku noqday qolkiisa lambarka 230. kooxda dilka waxay galeen qolka isagoona ku jira xaalad daal iyo hurdo.
waxaa la sheegay inay adeegsadeen suuxdin si uu buuq loo maqal, kadibna ay ku xireen koronto taasoo si degdeg ah u dishay. Dhammaan intaasi waxaa lagu sameeyey si xirfadeysan oo loogu ekaaday in uusan wax dagaal ah ka dhicin. Subaxdii dambe shaqaalaha hoteelka ayaa helay meydkiisa isagoona u muuqda nin si caadi ah u hurda, laakiin baaritaanka kadib waxaa soo baxday raadad muujinaya inuu ahaa dil qorsheysan oo heer caalami ah. Dhacdadan waxay ku noqotay mid dunida ka yaabisay sababtoo ah Mossad ayaa muujisay awoodeeda qarsoon iyo sida ay ugu guuleysan karto howlgallada adag. Dubai waxay muujisay muuqaalada kaamirooyinka amniga oo muujinaya kooxihii dilka fuliyay, taasoo dunida oo dhan ku faafay. Dilkii Maxamuud wuxuu sii xoojiyay xiisadda u dhaxeysa Israa'iil iyo Xamaas, isla markaana wuxuu kiciyay caro caalami ah oo ka dhan ah adeegsiga baasaboorada been abuurka ah. Dhacdadan waxay Maxamuud ka dhigtay halyey ku jira taariikhda halganka Falastiiniyiinta, halka Mossad ee mar kale ku cadeysay awoodeeda qarsoon, balse sidoo kale ay la kulantay fadeexo weyn oo caalami ah. Booliska Dubai ayaana baaris qoto dheer sameeyay kaamirooyinka CCTV-yada hoteelka ayayna qabatay dhaqdhaqaaq kasta oo kooxda fulisay. Sawirada iyo muuqaalada ayaana si degdeg ah loogu faafiyay warbaahinta caalamka. Arrintan waxay si weyn u fadeexaysay Mossad, iyadoona muujisay sida howlgallada sirdoonka casriga ah uu mararka qaar fashilmi karo. Dilkii Maxamuud wuxuu noqday mid saameyn weyn ku yeeshay Xamaas, Israa'iil iyo guud ahaan Bariga Dhexe, waxaana sii kordhiyay xiisadaha u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Nolosha Maxamuud waxay ahayd mid lagu tilmaami karo dagaal qarsoodi iyo halgan siyaasadeed, balse waxay sidoo kale dunida u iftiimisay awoodda iyo halista sirdoonka casriga. Dhacdadan weli waa mid lagu xasuusto sida dhacdooyinka ugu waaweyn ee qarsoodiga ah ee qarnigan.